dalka Jabuuti waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday ololaha doorashada madaxtinimada ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Ana lugtii koobaad ee ololaha doorashooyinka dalka Jabuuti maanta uu si rasmi ah uga furmay oo xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti uu ka bilaabay deegaanka Tajora oo ka tirsan dalka Jabuuti. waxaana dadweynaha ku dhaqan deegaanka Tajora madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ay ku qaabileen wajiyo dareen farxad ku dheehan yihiin isu soo bax ballaaran oo laga dhigay deegaankaasi ayaa dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi waxay muujiyeen taageero baaxad weyn oo ay u hayaan xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Jabuuti ee uu garwadeenka iyo musharaxa ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay goob fagaara oo ay isugu soo baxeen dadweynaha ku dhaqan deegaanka Tajora waxa uuna kala hadlay doorkooda shariifka ah ee ay ku leeyihiin ololaha doorashooyinka ee dalkani Jabuuti. waxaana dadweynaha ku dhaqan deegaanka Tajora uga mahadceliyay taageerada baaxadda weyn iyo isu soo baxa ballaaran ee ay maanta u sameeyeen xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee dalkani Jabuuti. waxaan doonayaa kalsoonidiin waxaan garanayaa inaan waxaan Tajora uga bilaabay kalgacal aan u qabo weyn walaalnimo ay qabaanna weyn waxa aan u socdaay waxa weeyaan hawshii aad idinku ii dirteen aad idinku dhaqaaqin aad tidhaahdeen idinku aad tidhaahdeen hawl baan noo taalle noo dhammee aniguna hayadii baan u imiday iminkana waxaan ku adkaynayaa hadalkaygu waxa uu yahay waddankeenna waddan noo dhammaay ma jiro waxaan ku qabnan arsaaqada ilaahay baa haye nin waliba wixii Allah ugu talagalay uu helay waddankeena sidee inaan jacaylkiisa muujino qaruurad la tuuray ama warqad meel lagu tuuray kolka aad ka qaado waddan jacayl baad iyaad tusaysa dadka wax yaqaana in maxaa ka galay dawladda leh la yiraahdo waa ceeb weyn in waddankani waa wada leenahay inaan wada ilaashano wey in aan ka beenta sheegaya dhan u joogsan idhaahno wey ka xaqa sheegaya inaan saanidno wey ka walaalnimada doonaya inaan garab joogsanno wey ka dalka horumarkiisa doonaya in aan isgarab taagno aan la qabanno aan la shaqayno wey waxa aan jeclahay anigu maanta Tajora waxaan u soo bilaabay afka faranjigana waan ku sheegay wasiirkuna uu macneeyay waxa aan sheegaynay waxay tahay wixii aan ku ballan qaadnay inaan sameynayno waxaan ahdi ku galaynaana inaan fulinayno haddii uu alla nala qabto nolosha dadka inaan hagaajino muwaadiniinta wixii ay Jabuuti u tagi lahaayeen inay halkan ka helaan weey waxa aan weydiisanaynaa ummadeena inaan isku duubnaano ama dameerjo aan joogno ama dumeera aan joogno ama looyacada aan joogno ama casceela aan joogno ama yoobo waad maadsantahay marka waddanku waa waddan ma kala baxay karno walaalnimada aan adkayno walaalahay ayaanta bisha 9keegana leenahay waddankeenu hore ha u maro dalkeenu jamhuuriyaddeenu to waxa inoo ballana bisha 9keega sidii aad caadada u lahaydeen kolkay joogto taageeradayda ay joogto sidii si ka qurux badan ayaan idinka filayaa waan idinku talagalayaa waxaan leeyahay anigana agtiina iga daya dalka Jabuuti oo guud ahaan maanta looga dareeray doorashada madaxtinimada ee dalkani Jabuuti
ayaa waxaa guud ahaanba si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa iyo isu soo baxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadweynaha ku dhaqan dalka Jabuuti isla markaasna ay ku dooranayaan xubinta u matali doonto hogaaminta sare ee dalka oo sanadkani ku beegan. Najiib Cabdiweli Cabdixiis, telefishinka caalamiga ee badda cas 24 Jabuuti.